Asalaamu calaykum walaalaha ku xiran Amjad Academy kusoo dhawaada cashirkeeni afraad aanu ku baranayno price action strategy. Haddaba cashirkan waxaan ku baran doonaa istiraatiijiyadeena labaad kaasoo aanu u naqaano bullet strategy. Haddaba waxaan rajeynaynaa in laga faa'iideysan doono insha Allah. haddii aan guda galno istiraatiijiyadeena bulletka ah waa istiraatiijiyadeena qaybta labaad aanu ku baranayno price action strategy. haddaba istiraatiijiyadeena hore waxaanu u naqiinay zadaasna waxay ahaaday continuation pattern ayay ahaaday. mar walbana waxaan sugaynay inuu qiimaha sameeyo impulse inuu sameeyo. after impulse waxaanu rabnay inuu sameeyo too high too low wax loo yaqaano ama formation aanu u bixinay qaabka uu eg yahay oo z ah. Okay, haddaba waxaanu imaanaynaa bullet strategy. Okay, bullet waxay ugu duwan tahay z strategy waxay ugu duwan tahay bulletka waxaa laga soo qaataa ama fursadda waxaanu ka abuureynaa meesha ugu horeyso oo trend janji ka sameynayo. Matalan haddii aan soo qaadano tusaalahan koowaad oo qaybtan haddaan soo qaadano waxaanu u jeednaa qiimaha wuxuu ku jiraa qiimaha uptrend ayuu ku jiraa soo marka waxaanu haysanay impulse fiican ayaan haysanay. Okay, after impulse wuxuu galay qiimihii ama price wuxuu galay inuu galo ascending inuu sameeyo. ascending mar walbo aan aragno wuxuu la kulmayaa cadaadis fara badan. Okay, step 1 bullet markii aan joogno waxaan u baahanahay inaan helno sam qiimo ku jiro cadaadis fara badan ama ascending ha noqoto ama descending ha noqoto ayaan u baahanahay. haddii aan helno ascending oo maxaa la dhahaa aanu aragno qiimaha inuu ku jiro ascending waa stepkeena koowaad sidaan u jeedno. Okay, marka ascending markaan joogno qiimihii waxaanu rabnaa step 2 in la soo jebiyo high ama low ugu dambeeyo ee ascendingkaas. Okay, hadda qiimahan waxaan u jeednaa ascending ayuu ku jiraa. this marka meeshaan waa highgeena ugu sareeyo ascending ka waaye. Okay, meeshaana waa low ugu sareeyo low ugu hooseeyo ascending ka waaye. Okay, uptrendigan meeshiisa ugu hooseyso waa halka meesha ugu sareysana waa meesha ugu dambeysa ugu hooseyso maadaama meeshaas tahay soo marka haddii meeshaas qiimaha la jabiyo sida loo jabiyo ayaan fiirinaynaa stepkeena labaad. in bullet markaan joogno marka waxaanu fiirinaynaa sidee meeshaas loo jabiyey. Okay, haddii aan aragno meeshaas inuu soo jabiyey candles kuwaasoo leh high momentum oo momentumkoodu sareeyo. Okay, markaas waxaa inoo xaqiiqo ah in ay dhamaatay trendigi lagu jiray oo uptrend ahaa ayna u badan tahay aad ugu badan tahay qiimaha inuu galo downtrend inuu galo. soo marka waxaanu markii la joogo bullet stepkeena labaad waa in ascendingkaas ama descendingkaas highga ugu dambeeyo ama low ugu dambeeyo in qiimaha lagu jabiyo high momentum in lagu jelsho. markii high momentum lagu jabiyo waxaa inoo cad meeshaas in ay aad u badan tahay in qiimaha uu galo downtrend ama si fiican inuu dhaco. meeshaas laga jabiyey marka in bullet marka waxaanu sameynaynaa meeshii ayaanu rabnaa areadaas in la testigareeyo ayaan rabnaa. marka mar walba oo la jabiyo bullet markii aan joogno waxaanu sameynaa ama waxaanu entry ahaan u galnaa limit order ama sell limit ama buy limit. haddii tusaale ka soo qaadno qiimaha markuu meeshaas imaado uu jabiyo waxaanu rajeynaynaa inuu sameyn doono retrace inuu sameyn doono. retracekaas marka haddii uu testigareeyo meeshii ugu dambeysay uu soo jabiyo waxay noqonaysaa bullet ayaa u naqaanaa waana high probability trade waaye. haddii marka uu meeshaas testigareynayo uu sameeyo haddana z hadduu formation sameeyo tusaale markii uu meeshaan ilaa xagga tagaayo haddii uu lacala kasoo qaad meeshaan ayuu si fiican usoo jabiyey markii uu tagaayana formation z ayuu ku testigareeyey areadii ayuu testigareeyey oo bullet ayaan ka haysanaa haddana waxaa haysanaa z ayaan haysanaa. haddii matalan qaabkaasoo kalena uu sameysto bullet plus waxay noqonaysaa z ayay noqonaysaa markaasna waxaan u naqaanaa high probability z ayuu noqonayaa. Okay,
marka qaabkaas ayaan bullet fursad uga abuurnaa. Marka bullet markii aan joogno waxaanu ka soo qaadanaa meesha ugu horeyso oo trendy janji ka dhacayo. Okay, inaan bullet markii aan joogno marka stop loss keena waxaan isticmaalnaa bullet markii aan joogno mar walba waxa loo yaqaano limit order hadii ay tahay buy limit iyo hadii tahay sell limit. Tusaale meeshaan ayuu qiimaha soo jabiyay limit order keena halkaas ayaan dhiganaynaa. meeshaas marka dhigano mar walba bulletka stop loss kiisa waxaanu ka dhiganaa hadbana waxay ku xiran tahay qofka iyo qaabku backtesting u sameeyo 10 ilaa 15 bid maximum. stop loss keena maximum markii aan bullet joogno waxaanu isticmaalnaa 15 bib ayaan isticmaalnaa. waxaanu isticmaalnaa limit order ayaan isticmaalnaa. marka tusaale ascending ayaan hadaan helno qiimahana la soo jabiyo waxaanu dhiganaynaa meesha qiimaha aheeday recently low ayaa waxaan dhiganaynaa limit order. taas ayaa ah weyga aan ku trade gareeno markii aan joogno bullet strategy. Okay, waxaa kaloo isticmaalnaa in bullet markaan joogno wax loo yaqaan inside bar aanu ka sameyn doono cashira aan ka soo sameyn doono. inside bar kana sometimes waxaan u isticmaalnaa recently low ama low ugu dambeeyay aan u isticmaalnaa. Okay, this marka waa markii aan abuureyno fursad sell ah in bullet markii aan joogno fursad sell markaan abuureyno aan imaano buy aan imaano. Okay, waxaan u jeednaa qiimaha inuu ku jiro downtrend wuxuu sameeyay impulse wuxuu sameeyay continuation pattern wuxuu soo dhacay oo nasiino wuu dhacay. Okay, hadda marka qiimaha wuxuu lahaa momentum ayuu lahaa laakiin after impulse-gan markuu sameysmay maxaa dhacay markuu wax yar kor aaday mar walba oo wax yar hoos aadabo qiimaha waa la soo celinaa. mar walba hoos aado qiimaha waa la soo celinaa. mar walba hoos aado qiimaha waa la soo celinaa. taasoo inoo cadeynayso in salariski awood ay ka dhamaatay ayna aad u badan tahay qiimaha more likely inuu aado kor inuu aado ay aad uga badan tahay. soo marka this descending aan heesano wuxuu leeyahay laawgi ugu dambeeyo laawgi ugu hooseeyo wuxuu kaloo leeyahay hayga ugu dambeeyay ugu sareeyo. hayga ugu dambeeyay waa halka laawgi ugu hooseeyana waa halkaas. Okay, soo marka this high oo leeyahay descending kan markii aan joogno bullet waxaanu fiirinaynaa sidee loo jabiyay. marka haddii qiimaha uu high momentum ku jabiyo oo si fiican u jabsho waxaanu sugeynaa ma sugeyno laakiin waxaanu dhiganaynaa limit order ayaan dhiganaynaa meeshii ugu dambeysay oo qiimaha soo jabiyo ayaan waxaan dhiganaynaa limit order si lamida sida aan usoo isticmaalaynay markii aan abuureynay fursadda selka markaan ka abuureynay. soo marka waxaanu marka ay aad u badan tahay meeshii oo trendy janjiga ka dhacayay oo meeshaan areadan waa trendy up trendiga meesha ka bilaabanayo waa. soo marka high probability waaye haddii uu dhaqaaqana waxaanu ka helaynaa more percentage maadaama aanu ka bilaabnay maadaama aan ahnay dadka ugu horeeyay oo kasoo bilaabaya trendiga maadaama aan ahnay. Okay, waxaa isweydiin mudan inta badan maxaa limit u dhiganaynaa oo haddii qiimaha uu impulse sameeyo ama oo momentum fiican sida engulfing candle uu sameeyo oo ka soo baxo maxaan isla markii trade-ka u qaadamayna. tusaale haddii aan aragno inuu qiimaha ascending sameeyo oo meeshaan ay tahay laaw ugu dambeeyay qiimaha markuu laawgaas jabiyo oo with engulfing ama with momentum uu ku jabiyo inta badan trade-kaas wuxuu soo jiitaa indhaha caalamka ayuu soo jiitaa. marka maadaama engulfing sameeyay qiimahan ascending oo soo jiray inta badan marka aad history ama wax soo dhacay price ka aad dib u raacid engulfing kaas ha noqdo 4 hour ha noqdo 1 hour marka aad dib u raacid inta badan waxa dhacdo in engulfing kaas ugu yaraan kala barkiis qiimaha uu gaaro. macnaha engulfing kaas inta badan in aanan sidiisu qiimaha hoosan u dhicin uu gaaro kala bar ama uu xogaa ku dhawaado ilaa 70% oo ku dhawaado. that is why waxaan ka dhihi karnaa psychology ka dambeeyo inta badan markuu qiimaha sameeyo engulfing ama marka uu sameeyo momentum oo clear ah oo qiimaha tilmaamayo in trendy janji oo dhacay wuxuu soo jiitaa indhaha caalamka. traders badan ayaa interest gareeyo. so after that waxaa dhacdo in qiimaha ay fursado ka abuuraan ama ay galaan
then markaas waxaa dhacayso markii oo wax yar kor aado oo annaga meeshaas limitkeena aan dhiganayno in waxaa dhacdo dadkii maadaama ay dad badan aysan dulqaad lahaynin ay ka cabsanayaan inay khasaaraan inay trade-ki iskaga baxaan iyagoo ka cararayo inuu stop loss-ka uga dhaxo soo marka maadaama dad badan ay ka baxayaan maadaama qiimaha uu wax yar ku laabtay engulfing-ki ama momentum-ki maadaama ku laabtay soo marka annagana meeshaas ayaa noqonaysaa meeshii orderka inoo furmay marka faa'iidada aan qabeena waxa waa kow stop loss keen ayaa yaraanayo haddii qiimaha uu dhaqaaqane isla markii la jabiyo laawgii dadka ay kasoo galeen annaga waxaanu haysanaa break even ayaan haysanaa minaha this laaw kasoo qaad dadka waa meeshay ka galeen maadaama ay arkeen engulfing maadaama ay arkeen annagana waxaanu kasoo galnay meeshaas ayaan kasoo galnay marka haddiiba qiimaha uu meeshaas imaado annaga waxaanu joognaa break even ayaa joognaa trade-kaas wuxuu joogaa break even soo marka that's why ayay u fiican tahay inaan isticmaalno limit order ayay u fiican tahay marka haddii aan intaas tusaalaha guud aanu kasoo tagno waxaanu imaanaynaa jaartigeena ayaan imaanaynaa waxaanu ka raadinaynaa real life example tusaale okay waxaan u jeednaa markii aanu meeshaan joogno qiimaha wuxuu ku jiraa ascending ayuu ku jiraa soo marka maadaama uu ascending ku jiro waxaanu rajaynaynaa inaan aragno qiimaha mar uun inuu si fiican meesha usoo jebiyo danna aan meeshaas limit order dhigano danna aan rajaynayno inuu qiimaha meeshaas ka dhaqaaqo okay marka aanu wadno aana aragno waxa dhaca insha Allah okay mar walbana markii aan joogno istiraatiijiyadeena price action maadaama time frame ka inta badan aan isticmaaleen oo yahay 1 hour time frame inkastoo sometimes aan another time frame aan fiirino laakiin mostly markii maadaama aan fiirinayno 1 time frame waxa muhiim ah saacad mar walba ay dhamaanayso inaad update gareysid mar walbana inaad la socotid waxa dhacayo iyo sida ay wax isku bedelayaan waayo waxa dhici karto in fursad ay imaado 1 hour kasta in fursad imaado ayaa laga yaabaa soo marka maalinkiiba inaad 2 mar 3 mar aad sameysid inaad fiirisid wax isbedelay okay waxaan u jeednaa qiimaha xogaasan impulse ayuu sameeyay laakiin impulsigaas markii si fiican loo fiiriyo momentum fiican ma lahan maadaama uu ilaa hadda ascending oo ku jiro marka annaga ilaa hadda waxaanu haysanaa ascending keeni ayaan ku jirnaa marka fursadda ama niyadeena waxa ku jiro in qiimaha uu san impulse oo down imaan doono haddii marka tusaale ay dhacdana ay dhici weysane inaan aragno qiimaha inuu si fiican kor u aado danna aan ka abuurno hadba zad wuxuu ina siinaa ka abuurno okay marka aanu wadno aan aragno waxa dhaca okay meeshaan waa meesha rabna marka waxaan aragnay marka si fiican ugu jeedno waxaan sameeynay laba candle ayaa wadnay high-geena waa meesha noogu sareyso meesha noogu hooseysana waxa waa this counter candle waa sidaan u jeedno waxa qiimaha lagu soo jiro ascending waxa qiimaha 2 candles oo high momentum ah ayaa sameysmay oo si fiican u liqay macnaha oo full ah oo aysan laheenin wax isbaayiga soo marka maadaama ay sidaas sameysmatay waa meesha ugu horeysay oo trendiga oo ka sameeyay oo ka soo jabiyay si oo clear ah soo marka qiimaha maadaama uu joogo meeshaas ayaa waxaan sameynaynaa qiimahan kan haddii aan isticmaalno kan ayaa meeshaan dhiganaynaa laawgeena waa halka meesha ugu dambeysana meeshaas ay noqonaysaa maadaama meesha ugu dambeysay ay meeshaas tahay qiimaha 29 waaye waxaanu sameynaynaa 2 bib ka hoos ayaan dhiganaynaa wax loo yaqaano sell limit ayaan dhiganaynaa 29 ayay aheeday waxaanu dhiganaynaa 17 ayaan dhiganaynaa okay stop loss keena mar walba waxaanu ka dhigaynaa wax 15 bib ayaan ka dhigaynaa stop loss keena okay aanu aragna marka haddii trade-kaas oo inoo furo iyo haddii kale ay isbedesho okay aan wadno waxaan u jeednaa inuu orderkii inoo furmay maadaama 1 candle oo qiimaha kor aaday oo na soo testigareeyay laawgii ama meeshii ugu dambeysay oo soo testigareeyay okay marka aan wadno ilaa marka fursad kale waxaanu ka abuureynaa haddii qiimaha uu break even noqdo okay hadda waxaan u jeednaa waxa meeshaas ku sameysmay counter candles ayaa ku sameysmay soo marka qiimaha waxay noqonaysaa inaan soo rarno high-geena iyo laawgeena inaan soo rarno okay marka waxay noqonaysaa inaan soo rarno stop loss keena inaan soo rarno waxaan stop loss keena keenaynaa high-ga ugu sareeya mar walba 2 bib ayaan ka kormareynaa maadaama ay dhici karto qiimaha inuu high-gaas imaado testigareeyo oo ka dhaca meeshaas okay aan wadno aan aragno waxa dhaca okay waxaan u jeednaa candle weyn imaaday okay high-ga ayuu testigareeyay qiimihiina mar kale ayuu haddana ka sii dhacsidii soo marka
stop loss keena wili meesha inoo yaala ilaa lawgan qiimaha uu ka jabiyay stop loss keena mar rari doono. Okay, aan aragna marka qaabka wax u dhaco. wili waxa sameysmaayo trendy candles ayaa sameysmayaan. Okay, hadda counter candle heysana. Okay, hadda qiimaha marka uu jabiyay sida u jeedo si clear ay u soo jabiyay marka meeshas ay naqanaysaa in stop loss keena ay naqanaysaa meeshas. Okay, stop loss keena marka meesh ayuu yaalaa. waxaan ka kormareynaa meesha laba bib camal ayaan ka kormareynaa mar walba si aan iskaga ilaalino inuu qiimaha meesha uu ka taabto. Okay, hadda marka fursad aan abuureynaa maadaama aanu nahnay free risk, maadaama aan nahnay lawgan waa meeshii ugu dambeysay. soo marka this law oo lawgeen ugu dambeeyay haddana ay tahay meeshii oo ku jiro wax loo yaqaan inside bar. this inside bar ayaan waxaanu dhigaynaa limit order ayaan dhigaynaa. soo marka tusaale maadaama ay tahay 95 waxaanu dhigaynaa 93 ayaan dhigaynaa. 93 haddii aan dhigno stop loss keena waxaan dhigaynaa 15 bib. marka hadduu inoo furmo orderkaas waa okay, hadduu inoo furmi waayna waan ka sii soconaynaa waana sii wadeynaa trade-keena. marka bullet waxay aad muhiim ugu tahay ama waxay aad u fiican tahay. waxaa la abuuri karaa fursado badan xeerkeeda ama shuruudeeduna ma ahan hadduu high to low kaliya waa in qiimaha uu ku jiro ascending ama descending. ama ascendingkan iyo descendingkan wuxuu noqon karaa for continuation, sometimes hadduu qiimaha ku jiro, sometimes na for reversal ayuu ku jiri karaa. marka ascending ama descending ayaa u baahan tahay. waxaa kaloo u baahan tahay momentum ayaa u baahan tahay ama full candles ayaa u baahan tahay. Okay, aan aragno waxaa sameysmay. Okay, marka orderkaas sidaan u jeedno inuu inoo furmo ay u badan tahay. hadda waa inoo furmo marka orderkeeni oo inoo furmay marka waxaan sugaynaa. Okay, waxaan u jeednaa in orderkii inoo furmay haddana uu si fiican wax xer kor u aaday laakiin isla markii uu candle u soo laabtay. marka stop loss keena wuu imaan doonaa, waa soo rareynaa. stop loss keena wuxuu imaanayaa halkaas ayaan keenaynaa. stop loss keena maadaama 2 bibis aan u jirsanayno stop loss keena waxaan keenaynaa meeshaas. marka mid kamid ah wili waxaan ku jirnaa risk ayaan ku jirnaa. labada stop loss ba meeshaas ayaan keensanay. mid kamid risk ayaan ku jirnaa, mid kamidana waxaan haysanaa profit ayaan haysanaa. soo marka maadaama risk aan wili ku jirno fursad kale ma ku fikirin doono. Okay, hadda marka qiimaha waxaan u jeednaa inuu jabiyay. soo marka waa inaan soo rarnaa marka haygeena waa halkaa. marka kulli markii aan soo rarno stop loss keena kan wuxuu noqonayaa stop loss cusub inaan sameeyno. haddana stop loss keena inaan meeshaas dhigano markastana aan 2 bib aan u jirsano. markasta inaan 2 bib u jirsano. Okay, marka aan wadno. Okay, inta aan marka meeshaan order kale ama fursad kale inaan ka abuurno ayay aheeday maadaama si fiican aan u fiirino fursad kale ayaa meeshaas ku jirto. fursad saddexaad ayaan abuuri karnaa. waxaan u abuuri karnaa fursad saddexaad. waxaad u jeednaa this is in maxay tahay in uu qiimahaas u soo jabiyay si clear inuu soo jabiyay maadaama qiimahan uu ku jiro impulse, maadaama ascending hore u soo jiray. soo marka haddana aan haysano candle oo high momentum candle ah. this high momentum candle maadaama uu si fiican u soo jabiyay marka qiimaha marka uu yahay 78.4 waxaan dhiganaynaa 76.4 ayaan dhiganaynaa. Okay, marka aanu wadno mar walbana stop loss keena sidaan hore u sheegnay waxaanu ka dhigaynaa 15 bib ayaan ka dhiganaynaa. sometimes 10 bib waa ka dhigi karnaa 12 hadba waxay ku xiran tahay adiga iyo back testing kaad ay ku xiran tahay. laakiin inta badan aniga 15 bib ayaan isticmaalaa. 10 bib waa ka dhigi kartaa laakiin waxay ku xiran tahay back testing ka samaysid iyo qaabka adiga ay kugula fiicnaato. Okay, aanu wadno aan aragna wax dhaca. waxaa u jeedaa orderkii inoo furmay kadibna qiimihii oo si fiican hoos u aaday. soo marka waa fursad aad u fiican. Okay, hadda marka waxaan haysanaa counter candles this counter candle haddii uu jabiyo ayaan waxaan sameynaynaa inaan soo rarno. Okay, kan counter candle ayuu ahaa qiimihiina wuu jabiyay. soo marka waa in aan soo rarnaa haygeena iyo lawgeena inaan soo rarno. haygeena marka meesha ayuu noqonayaa. soo marka waxay noqonaysaa in haddana aanu sameyno new stop loss inaan sameyno. marka saddexdii trade ba waxay noqonayaan inaan naqano kuwo aan ku jirno kulligood some profit aan haysan doono insha Allah. Okay, stop loss keena waxaan dhiganaynaa 2 bibs above ayaan dhiganaynaa.
laba bib ayaan kor uga qaadanaynaa. Okay, kana aan waxyar ku darno stop loss keena meeshaas ayuu yaalaa. Marka si randomly ah meeshaas ayaan dhiganay stop loss keena. Okay, marka hadda waxaa inoo furan 3 trade, saddexdooda trade ba waxaanu haysanaa inay qiimaha ku jiraan clear oo maxaa la lahaa inuusan kulli risk aysan ku jirin, aan mid walba aan haysano profit aan haysano aan wadno. marka aan aragno waxa dhaca, hadda waxaan u jeednaa inay sameysmeen candleska inay momentumka lose gareeyeen. soo marka hadda fursad ma abuuri karno ilaa aan ka helno high momentum candle. Okay, this is the high momentum candle. marka waxaan sameynaynaa inaan hadda marka fursad u abuuri karnaa. recent lawgeena waa kaas, recent highgeena waa halka. Okay, our highgeena kale waa meeshaas soo maaha. Okay, lawgeena ugu dambeeyay la soo jabiyay maadaama uu halka yahay, marka waxay noqonaysaa inaan dhigano qiimaha waxa uu ahay 58. soo marka 58 maadaama uu yahay waxaanu dhigaynaa 56 ayaan dhiganaynaa. 56 ayaan dhiganay. soo marka stop loss keena waxa waaye waa 15 bib. Okay, marka waxay noqonaysaa stop loss keena inaan soo rarno maadaama new high aan sameynay. soo marka stop loss keena meesha inaan keenno. Okay, mid kasta inaan soo rarno. Okay, marka waxaanu haysanaa kulligood some profit ayaan haysanaa. haddana waxaa inoo bannaan inaan trade kale ayaan rabnaa inaan isku dayno. soo marka hadduu inoo furmo waxkaas, haddii uu furmi waayo ay counter candle sameysmaan kadibna laawgii la jabiyo, waxay noqonaysaa inaan meeshaas iskaga delete gareeno, orderkaas aan delete gareeno. Okay, waxaan u jeednaa orderkii inuu furmay, qiimihii hal mar oo kor aaday kadibna oo soo noqday. Okay, marka aan aragno waxa dhaca, waxaan u jeednaa in si clear ah qiimaha uu dhaqaaqi u sameeyay oo si fiican oo inoo dhaqaaqay. soo marka trade-keena ugu dambeeyay ayaa kaliya wuxuu ku jiraa riski. saddexdii trade ka horeysay kulli waxaan haysanaa some profit ayaan haysanaa, welina waxaan rajaynaynaa inuu sii dhaqaaqo. soo maadaama aan haysano clear momentum, ma isku dayi karno inaan fursad abuurno maadaama ay dhici karto in qiimaha uu sameeyo some ranging oo dhici karto. waxaa laga yaabaa inuu qiimaha ranging sameeyo oo kadibna oo iska dhaco. marka fursad ma abuuri karno maadaama aan ku jirno riski, maadaama aan ku jirno wax fursad ma abuureyno. waxaan sugaynaa counter candles kadibna qiimaha waxaan sameynaynaa inaan soo rarno markaas. Okay, marka aan aragno sida ay dhacdo iyo waxa dhaca aan aragno. Okay, waxaan u jeednaa in qiimaha oo inoogu laabtay, inkastoo stop loss keena oo weli gaarin, qiimaha inuu sameeyay inuu laabtay. stop loss keena inkastoo oonusan weli dhammaan gaarin oo laakiin laabasho inuu sameeyay. Okay, waxaan u jeednaa qiimaha wuxuu galay some ranging, marka ilaa si clear uga baxo ama oo inooga saaro. Okay, hadda marka wuu ka baxay sida u jeedno. marka waxay noqonaysaa stop loss keena inaan soo dhaweeyno xoogaa, inkastoo ay isku meel yihiin stop loss keena. marka stop loss keena isla meesha ay inoo aalayaa maadaama ay waxba u jirin. waxyar ayaan soo dhaweynaa stop loss keena, waxyar ayaan kusoo daraynaa stop loss keena maadaama uu highga cusub uu noqday meeshaas. waxyar noogu soo dar. Okay, meesha ayaan noqonaysaa stop loss keena inaan dhigno. marka kii koowaadna asina wuxuu noqonayaa stop loss inaan soo dhaweyno aanu meeshaas keenno. marka macnaha 4 bib camal aan riski ku jirnaa weli macnaha free risk maninin 4 bib meelahaas ayaan trade-keena ugu dambeeyay ugu jirnaa. soo marka ilaa asigana oo free risk ka noqdo wax fursad ma sameynano. midda kalena haddii aan fiirino jaartiga, waxaan u jeednaa in qiimaha oo momentumka yar yahay, macnaha uusan jirin clear impulse fiican inuusan jirin. soo marka waxaan u jeednaa inuu qiimaha uu sameeyay some ranging inuu sameeyay, haddana laawgaan iyo laawgaanu ay iska daba dhow yihiin. soo marka waa macquul inuu qiimaha sameeyo descending kadibna ay noqoto trend change ama meeshii ugu dambeysay. Okay, hadda waxaan u jeednaa clear impulse, qiimaha inuu si fiican oo clear momentum ama si fiican inuu u jabiyay oo maxaa la dhahaa si fiican jabis fiican u sameeyay. soo marka stop loss keena waxay noqonaysaa inaan soo rarno. stop loss keena cusub wuxuu noqon doonaa 2 bib ka kor ayuu noqon doonaa. soo marka kanna
kulli marka waxay noqon doonaan inay kulligood some profit ay ku jiraan. stop loss keena haddii aan soo rarno marka mar walba waxaa muhiim ah stop losska meesha aad dhigaysid inaad ka fikirtid, because of waxaa laga rabaa trendiga meesha ee high-ga ama low-ga meesha uu yahay inaad wax yar ka kormartid, maadaama ay dhici karto in meesha la testigareeyo fiiq yar kor looga baxo maadaama ay dhici karto. marka qiimahana inaad zaaid kor u geysidna ma fiicno, because of haddii qiimaha zaaid kor u geyno waxaa laga yaabaa inaan profit fiican anagoo haysanay qiimihii inuu soo laabto ee noqoto zero. marka anaga zero ma rabno oo wax inaan faa'iido ka sameyno waa rabnaa, haddana ma rabno in qiimihii nagala saaro haddana lasii socdo. marka waa in labadaba aan isku fiirino anagoo labada dhinacba ka fikirayno, anagoona aanan rabin inaan si fiican kor ugu qaadno si aanan wax faa'iida u helin, anagoo aanan rabin in qiimaha aan hoosta kasoo gelino si qiimaha oo inooga saarin kadibna oo iskaga dhicin. okay, hadda marka waxaa sameyneynaa inside bar ayaa meeshaan ku jiro. this is the inside barkaas. marka inside barka meesha uu yahay waa halkaa, meeshaas ayaa waxaan dhiganaynaa marka maadaama momentum fiican uu kusoo jebiyey 2 bibs below ayaan dhiganaynaa. okay, stop loss keeno marka waxay noqonaysaa 15 bib ayay noqonayaa. marka aan sugno haddii meeshaas uu fursad ka imaado. okay, marka haddii qiimaha uu sameeyo inuu laabto weli marka orderkaas waan interest gareynaynaa, aan aragno counter candle. okay, marka orderkaas ma shaqeynayo waana delete gareynaynaa because of waxaa dhacay wax loo yaqaano retrace candle. so marka waxay noqonaysaa new high iyo new low inaan soo sameyno. okay, marka new high-geena waa halka, new low-geena waa meesha. marka stop loss keenana waa soo cusboonaysiinaynaa, waxay noqonaysaa marka inaan meeshaas aan keensana ayay noqonaysaa. marka in bullet markii aan joogno fursado aad u badan ayaan abuuri karnaa maadaama xeerkiisa uu yahay xeer aad u kooban, laakiin kaliya ay muhiim tahay ascending or descending inuu qiimaha ku jiro. okay, marka hadda marka aan dib u laabano waxaanu ku jirnaa 4 trade ayaan ku jirnaa. tradekeena koowaad 6% something ayaan haysanaa, midkeena labaad 5% ayaan haysanaa, midkeena saddexaad 4% ayaan haysanaa, midka afraadna 3 wax ku dhow ayaan haysanaa. so marka waxaanu si isku dayaynaa inaan haddana fursad kale abuurno. okay, this is the inside bar. maadaama inside bar oo meesha ku jiro 2 bibs ayaan dhiganaynaa. okay, marka hadduu opportunity ina siiyo waa kaa, si aan u jeedno qiimaha ma inoo furmin sidiisa ay u dhaqaaqay. hadduu inoo soo laabto waanu interest gareynaynaa. okay, ma shaqeynayo marka orderkaas uu delete gareysmay. marka new high new low. marka okay, waxay noqonaysaa stop loss keen inaan soo sameysano. marka marmar qaar marka waxaa dhici karto inay fursadaas oo kale kusoo marto, sometimes ayaa fursadaas la helaa. soo marka in bullet markii la joogo waxay ku fiican tahay in qiimaha ascending or descending la helo, kadibna aad meeshaas fursad aad u fiican oo profit fiican aad ka qabatid. laakiin haddii mar walba impulse to impulse ama qiimaha oo indecision yahay uusan clear ahayn, trend janji iyo waxa dhaca haduusan clear ahaynin, waxaa fiican in qiimaha la iska sugo. marka z iyo bullet waxaa high probability ah bullet, laakiin bulletka mar walba ma la helo. marka bullet mar walba waxay ku xiran tahay in la helo ascending fiican ama descending fiican, kadibna la helo high momentum la helo. okay, hadda marka maadaama qiimaha si fiican uu soo dhaqaaqay weli hadda ma haysana low. soo marka waxaanu sugaynaa qiimaha inaan helno fursad kale. haddii aan ka abuureyno waan ogolnahay, haddii fursad kale ina siiso waana ka abuureynaa. soo marka aan aragno wixii dhaco. okay, waxaan u jeednaa inuu sameysmay new low new high. marka waxay noqonaysaa inuu soo dhaweey stop loss keena.
okay marka maadaama hadda waxaan u jeednaa qiimaha inuu u egyahay momentumka inuu luus garanayo ayna macquul tahay inuu descending sameeyo danna ay noqoto meeshii oo qiimaha oo inooga saar lahaa. marka maadaama uu dhamaad ku jiro wax trade ma isku sii dhibeeno, waxaanu kaliya sameynaynaa inaan management sameyno aan aragno waxa dhaca. okay hadda marka wili momentumka saa u jeedno waa losing, momentumka wuu lumay, marka descending ayaa muuqdo inuu ku jiro. okay marka waa kaasaa mees ay kusoo gabagabowday orderadii aan furanay. okay waxaan u jeednaa orderadii mees ay kusoo dhamaadeen. marka hadda tusaalaheena aan kusoo qaadana bulletka waxaanu sameynay 4 trade ayaan sameynay. 4taas trade mar walbana 4toodana waxay ahaayeen bullet, mid ku jiro mid ah z. soo marka bullet waxa waaye waa high probability trade waaye, laakiin waxay ku xiran tahay price ka qaabka u sameysmo. waxaa muhiim ah inuu qiimaha ku jiro ascending or descending. marka mar walba waxaa muhiim ah inaad sugtid ilaa fursad bisil oo clear ay ka imaado, waayo waxaa laga yaabaa fursad noocaana haddii ay ku imaado ayaa kugu filan bishii dhan faa'iido aad u fiican aan ka helnay. si aad u jeedno kii koowaad waxaan ka helnay 9.something%, kii kale waxaan ka helnay 7.something% ama 8% wax ku dhow. okay waxaan u jeednaa midkii kale 6.7 ayaan ka helnay, midkii kale waxaan ka helnay 5.3. haddii aan isku geyno waxay imaanayaan 30%. soo marka inaa hal trade oo fursado badan aad ka sameysay aad ka sameysid 30% iyo account waxa waaye waa amazing, wax aanan mar walba la helin. laakiin haddii sugitaan fara badan iyo dulqaad fara badan aad sameysid, haddii ay imaadaan fursad noocaana ay noqonaysa inaad ka faa'iideysatid. soo marka waxaan rajeynayaa in la sameeyo back testing aad u fara badan, lana sugo mar walba fursadaha inay noqdaan fursado clear. marka hadda bilihii ugu dambeeyay sida December iyo November fursadaha ma aysan jirin fursad clear fursad clear ma aysan jirin, waayo markii aad suuqa fiirisid markaas wuxuu sameynayaa impulse to impulse. marka haddii aad aragtid waxaa arkaysaa qiimaha sidaan u sameeyaa kor u aadaa, impulse inta u tagaa kadib impulse haddana. marka impulsigaana aragnay, impulsigaana arkoona. soo marka haddii impulse to impulse tahay aad ay u xun tahay, marketkana waxa waa marka uu xun yahay in fursad laga abuuro. marka ka joogso, ka istaag, sug ilaa uu ka sameeyo fursad aad u fiican ilaa uu kaaga sameeyo. marka waxaan rajeynayaa in la fahmay, waxaana isku daydaan inaad sameysaan back testing. Soomaalideena inta badan waxyaabaha aan ka dhimanay waxaa kamid ah back testingka ayaan liidnaa. back testingka run ahaantii waa wax istiraatiijiyad kasto ku sameynayo inaad sameysid la qabsi aad u fara badan. marka back testing aan sameyno, trading view-nada aan gadano si macnaha ay u badato xirfadeena si kor u ziyaado. macnaha hadda tusaale istiraatiijiyad cusub ayaa ku soo biirtay trading balaankaaga. istiraatiijiyadaas trading balaankaada ku soo biirtay waxay u baahan tahay mock back testing, waxay u baahan tahay gacantaada inay barato, waxay u baahan tahay niyadaada iyo maskaxdaada inay la qabsato ay u baahan tahay. soo marka si istiraatiijiyadan ay kula qabsato waxaa aad u fiican inaad sameysid back testing. videoga xigo waxaanu kusoo gudbin doonaa back testing 2 bil 3 bil aanu sameyneyno ayaanu kusoo gudbin doonaa. marka adigana back testing samee, ku laabo. mar walbana cilmiga hala kordhiyo, cilmiga ayaa ah furaha guusha. intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.